سودوا صاحبيال وصاحبتي كفنباري ما أنت واحد جدام مجال هذا بوصاصو وحن ربا إن نقله وحوصعنا ملحة يا وصعنا تولد لي هذا ملحة قدها كلا يقول صوت يرندون إن شاء الله جواردي أنا راعي لهنا حاجة سنة حجان مكان غير برواية لكن واني وناكس بس يا بحنية باري واني كلا نامي كنا حكر رواية وقصة ما يصير ملحو عن كل يوم الحمر كور يساوي بشيء مركز يساوي بشيء وطلع عاد يساوي قلابك الروح من الحلو قرا كل شيء هاي كور وانا قصة تبادل كور ذاك وانا سحرتها وين مركز لبعض وانا ساعات قاطع يوم أتوقع تبارك لي ذهب مركز صدحاء وانا هدلة عمرها كام عن طوح العجاء بحين بحين ذهب وكيف سنة هادو مركز لعلها سوش غيسي ذهب كذا معك عنده تاع قربان من الحلوق الدورة حوت كلام ساعات وكلام يا عليه يعني كان كيف عاود يعني كاتب يوسف لا وتطلع ما بالحكومة ما يمرك كلام كفدي أو هوايان يجوا لبس سنة سنة يشوفي عمرها ثانية أنا عليه سنة عشان تسمي كاني كحول نوعك سيد ما كله صار كذا halkan waa gaarigii aan raaci lahay halkan ayuu taagan yahay leeladan aan raaci ma sha Allah noo shiraacan tahay waan dhaqaajinaa insha Allah halka shirka horeyaan geli doonaa waa inoo yimilxa insha Allah maanta waxaan la socdaa youtuberka weynaa Kabtan Barri waxaan ku soconaa xarunta dahabka Soomaaliya milxo centralka geeska Afrika oo xarunta ugu weyn dahabka Kabtan ku socdaa youtuberka weyn adeera soo dhaweeyo Soomaaliya reer milxo dhan Kabtanka waa ku soo dhaweynaa meesha la yiraahdo milxo caasimadda waxaan leenahay gacmo furan waxaan rabnaa inaan soo siino kiilooyin dahaba maadaama wadagu markii ugu horeysay tahay soo dhawow mar labaad mar saddexaad ba gurigaagii baa tagtay gurigaagiina waa ka timi insha Allah taala waad nala arki doontaan quruxdeeda iyo jawigeeda marka kabtanku uu si fiican u soo sharaxo waxaan marinaynaa aan ku dhaafahay u soo dhicin waxaan marinaynaa xumbays waxaan marinaynaa cadcado waxaan marinaynaa durduri insha Allah taala asbaray milxo dhulkaas oo dhan buu tagi doonaa gobolka Sanaag insha Allah caasimadda khayraadka dalka waxaan leenahay kabtan welcome to milxo insha Allah taala قول بانو رجينا كاسنا وحو ها دراولكي قعدت عبدالكريم اسماعيل درسن اسماعيل درسن وإنه وضع ملحة قوبة الذهب كان هذه عرقي سناك هذه
halkan aan joogno waxaa la dhahaa aan ku dhaafe ha igu soo dhicin aan ku dhaafe ha igu soo dhicin aan ku dhaafe ha igu soo dhicin maxaa loogu bixiyay nin hore oo dareewal oo berigii warshada ruushka laga shaqayn jiray baa nin halkan soo maray dhagaxan u eegay markaasuu tixiyir u tigay wuxuu yidhi dhagaxayow ilaah baa kugu dhaaway meesho darar iyo lixaad baa rabbi kuu dhameeyey inta aan ku dhaafayo ilaah baa kugu dhaariya ha igu soo dhicin ha igu soo dhicin ha igu soo dhicin marka halkaas wuxuu leeyahay marka waa dhagaxaantan badan oo isdul saaran ilaa 12 xabo weeye jarjara ah qayb waliba waa soo daadatay waa dhagaxaan badan waa dhagaxaan mucjise ah ilaahay halkaas ku og yahay ma soo dhacaan halkoodaasi joogaan marka dhinacna baddi baa ka haysa dhinacna berrigii sidaas weeye marka meeshan waa meel khayraysan baddi waa kuwan hadda baddi oo kale hadda Boosaaso halkan intee u jirtaa Boosaaso ilaa halkan waxay u jirtaa adigu ilaa 45 kilomitir 45 kilomitir halkan u socona milxa iyadana milxana 110 kilomitir buu jirtaa marka insha Allah taala waa kaasa baddi iyo berrigii waa isaas u haysta inta gaarigu marayo baa ka banaan soo ma jeedid waatana baddi hadda waxaan taaganahay jiinka wadada dee waxba kama dhina wadadii baddiina halka garaacaysa wadadiina waa tana waa biqudrati illaahi tacaala weeye dhulka cajaabka way ka mid tahay aan ku dhaafe ha igu soo dhicin badan magaalada waxaa la dhahaa Durduri markaan safarka naga Boosaaso ka nimaadno ama milxa ka nimaadno waa meesha aan cuntada ka cunno laga qadiyaa waa magaalo qabow oo iska yara magaalanaysa aad waa ku nasanaa dadka dad wanaagsan weeye waana la soo dhaweeyaa mar walba heegan baan loo yahay laakiin problemka waxa weeye shirkadda Golis baan ateena fiican keenino xoogaa halkaa dadweynaha jooga cabashay ka muujiyaan ateenada xoogaa hiriga marka waxaan rajaynaynaa Golisna inay si degdeg ah ateena ugu keento oo ay ka saarto ma garanaysaa dadkan laba heri karada annaguna Durduri baan ku leenahay soo dhawow meeshaan Durduri waa meelihii hore oo xeebihii hore oo Soomaaliya waliba reer Sanaag iyo ma garanaysaa ay degi jireen waqti fara badan ayay Durduri jirtaa hadda aan la koobi karin awooyaal baa deganaa ما شاء الله ويلكم دردري كقدين مقالة دردري هي دردري أنا وكان بريس هي باست اسكو دح جرتا هي تمر أيوة تمرتها وحكوا عنا ريربري وأنا هاي هذا هو حسين تمر هذا هو حسين هذا تمر لاي ما بعنا عنه ما عنده أنت هذا ما هذا هذه أنت هالكن جير ريربري وأنا هذه قلنا ريربري وأنا ويلكم أنا أسوق جوا السفر كاني Boosaaso إلى ملحو إسماعيل حقيقة حاج waxaan joognaa magaaladii xaruntii dahabka macna dahab kaliya dahabka adiga dadku ba sheegay xaruntii macdanta macdan badan baa ku jira meeshan dahabka dadku ba iska yiraahda marka alxamdulillah si nabad baan u nimi youtuber Captain Barry soo dhawow baan ku leenahay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar labaadba waa milxo marka alxamdulillah si nabad aan u nimi ilaahay waan soo nabad keenay waana joogaynaa soo dhawow baan ku leenahay milxo maxay caan milxo macdanta si general macdanta caadi u tahay laakiin dadku dahabka yiraahdaan dadka ka faa'iideystaan laakiin macdana badan oo dadka aqoonta leh ay ka gurtaan baa jiro oo waxaan aqoon bay u baahan tahay ma ogtahay macdanta iska ku soo orod maaha إن شاء الله قومي ده كانوا واسوي يقدرنا يصير مقالة دخلها بسوا كنيسة والله سنت إسماعيل عن كسر بحين Boosaaso إلى ملحو أبي ما سنت